Maamulka dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ee Puntland ayaa mamnuucay qodista qabriyada aysan ogeyn dowladda hoose iyo in uu qabuuraha ka shaqeeyo ama qabri uu qodo qof aan u diiwaan gashanayn dowladda hoose. Sababta keentay amarkaani mamnuucista ah ee ka soo baxay maamulka degmada Gaalkacyo ayaa waxaa lagu sheegay dhowr qodob. Kow, in la gooyay dhammaanba waddooyinkii dhex marayay qabuuraha magaalada Gaalkacyo. Labo, qabriyada oo aan la qodayn cabirkii loogu talagalay, taasoo sababtay in xilliyada roobka ay meydadku bannaanka yimaadaan. Saddex, beekaamin la'aan dhulka ah, qabriyada oo la iska dulqodayo, iyo in godadka qabriyada ee la qodayo xilliga habeenkii ah ay aad ugu soo badanayaan magaalada. Amarkan ka soo baxay dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ayaa waxaa ka dhashay falcelin xooggan, waxaana dadka qaar ay aad u soo dhoweeyeen tillaabada ay qaaday dowladda hoose ee Gaalkacyo, halka kuwo kalena ay ku tilmaameen go'aan ay ku hoos duugan yihiin qorshayaal kale. Dhowrkii sane ee lasoo dhaafay, waxaa aad looga dayrinayay dayacaad weyn oo ka jirta xabaalaha magaalada Gaalkacyo, sida in magaaladii iyo qabuurihii ay isgaareen, oo la degay hareeraha qabuuraha iyo in boosas laga calaamatay dhulka uu ku fidi lahaa xabaaluhu, taasoo meesha ka saartay xurmadii uu qabuuruhu lahaa. Sidoo kale, xilli roobaadkii dayrta ee lasoo dhaafay oo aad ugu badnaa magaalada Gaalkacyo, waxaa burbur badan ay daadadkii u geysteen qabuuraha magaalada Gaalkacyo. Qabriyo badan ayaa dumay, sidoo kalena meydadkii ayaa bannaanada ay biyuhu u soo saareen. Amarkan maanta ka soo baxay dowladda hoose ee Gaalkacyo laguma sheegin in qabuuraha loo samayn doono dhul uu ku fido iyo waddooyin loo maro.